bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan qodobada wararka keenana duhurnimadana waxaa ugu waaweyn al-shabaab oo weerar ku bilowday gaari qarax laga soo buuxiyey ku qaaday saldhigga ay ciidamada xoogga iyo kuwa jubbaland ku leeyihiin deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose golaha wasiirada ee xilka sii haya oo la isugu yeeray shir degdeg oon caadi ahayn qaar ka mid ah ardaydii wasaaradda waxbarashada ay shaacisay in ay ku dhaceen imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo maanta dhigay dibadbax ay arrintaasi kaga cabanayeen shaacinta natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo bannaanka keenteen arday badan oo gobolka banaadir imtixaanka ku galay ay ku dhaceen haddaba waa maxay sababta arday badan oo gobolka banaadir ay ugu dhaceen imtixaanka dawladda warbixin ayaanu idinkaga haynaa dalada waxbarashada seef oo sheegtay in wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay ku dhaqaaqday mas-uuliyad darro weyn oo dhinaca imtixaanaadka ah dalal ay ku jirto soomaaliya oo safka hore ka galay musuqmaasuqa dhaqaalaha ee covid-19 kenya oo sheegtay in xeelad cusub ay u adeegsan doonto dagaalka ka dhanka ah al-shabaab mar kale duhur wanaagsan waa isniin 7 bisha 9 ee Sebtembar sanadka 2020 cali ibraahim cabdulaahi ayaa warkeena duhur soo saaray maxamed shooriya nuur anigoo ah farxiyo xuseen ayaana soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar ku bilowday gaari qarax laga soo buuxiyey ku qaaday saldhig ay ciidamada xoogga iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose sida walkan kismaayo goordhow uu kaga soo diray cabdimajiid cabaas aadan wararka laga helayo deegaanka janaac cabdalle oo qiyaastii 60 kilomitir uga beegan duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan dhanka galbeed ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay maanta weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen deegaankaasi weerarka oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lala beegsaday saldhigga ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ka sameysteen deegaanka janaac cabdalle waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah deegaanka janaac cabdalle ayaa maalin ka hor waxa al-shabaab ay kala wareegay ciidamada dowladda kuwa Jubbaland waxaana markaa al-shabaab ay sheegteen in ay gaari walxaha qarxa loo adeegsaday laga soo buuxiyey ay la beegsadeen deegaanka janaac cabdalle oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay ka hortageen weerarka kaga yimid dhinaca al-shabaab isla markaana ay ilaa iyo haatan deegaanka ay gacanta ku hayaan hayeeshee warar kale oo madax bannaan oo aynu ka helino deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada saaxiibada Mareykanka ay haatan howlgallo miina baarisa ay ka wadaan wadooyinka soo gala deegaanka janaac cabdalle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana markaasi ay halka la sheegay in sidoo kale ay ka saareen miinooyin lagu aasay dhinaca wadada ee markaasi gaar ahaan dhinaca cilmiyoodka deegaanka oo ay markaasi ku sugan yihiin xero weyn ay ka sameysteen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo isgarabsanaya oo halkaasi dagaal kula wareegay maalmo ka hor warar kale oo aanu ka helino deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay sidoo kale weeraro waaweyn ay u qorsheynayaan deegaankaasi iyaduna inta badan xerada saldhigga ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay ku sugan yihiin ammaankeeda haatan si weyn loo adkeeyay balse ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahin rasmi ah oo saraakiisha ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay ka bixiyeen weerarkaasi ku bilowday qaraxyada oo soo gaaray dhankooda balse al-shabaab ayaa markaasi barahooda waxa ay ku shaaciyeen in ay iyagu halkaasi weerar ku qaadeen khasaaro dhimasho iyo dhaawacna uu jiro balse ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara warka al-shabaab ee markaa ku saabsan in halkaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen askartii ku sugnayd deegaanka janaac cabdalle oo fariisin muhiim ah u ahayd dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ayaa inta badan waxa ay ka heli jireen lacago ay markaasi ka qaadaan gaadiidka u kala gooshaya gobolada dalka balse taa oo ay inta badan deegaanku ay tahay mid ay gobolada gaadiidka u socda ay inta badan soo maraan maadaama ay ahayd marin muhiim u ah wadooyinka gobolka Jubbada Hoose golaha wasiirada ee xilgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta la isugu yeeray kulan aan caadi ahayn kuwaas oo xalay iyo saaka fariimo loo diray
kulankaas ayaa lagu balansan yahay in uu dhaco 2 duhurnimo isniinta maanta ah. lama shaacin waxa looga hadlayo kulankaas, ha yeeshee waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmahan kulamo siyaasadeed oo xoog leh ay ka socdaan magaalada Muqdisho. waxaa ku sugan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kuwaas oo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Muqdisho, waxaana xusid mudan in dalka uusan weli lahayn xukuumad rasmi ah. Shaacinta natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ayaa banaanka keentay in arday badan oo gobolka Banaadir imtixaanka ku gala ay ku dhaceen. Haddaba waa maxay sababta ay arday badan oo gobolka Banaadir ah ugu dhaceen imtixaanka dowladda? Warbixintan waxaa inooga diyaariyay wariyaheena Xuseen Cabdulle Maxamed. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa shalay shaacisay natiijada imtixaanka dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020. wasaaraddu waxay sheegtay in imtixaanku ay galeen arday gaaraysa 33727 qof, waxaana gudbay 25177 qof. waxay wasaaraddu sidoo kale sheegtay in arday gaaraysa 8550 arday ee imtixaanka ku dhaceen. arrintan ayaa muujinaysa in 7873 qof oo ah ardayda gobolka Banaadir ay dhaceen, waxaana wadarta ardayda hartay ay ka yihiin 90%. saacadii la soo dhaafay waxaa aad la isu weydiinayaa maxaa sababay in ardayda gobolka Banaadir ay noqdaan kuwa ugu badan ee ku dhacay imtixaanka dowladda. idaacadda Kulmiye ayaa heshay 3 arrin oo waaweyn oo sababay in ardayda gobolka Banaadir imtixaanka ku dhacaan kuwa kalena ay gudbaan, waxaana arrimahaasi ka mid ah: 1. ardayda gobolada dalka intooda ugu badan macallimiinta ilaalisa waxay siiyeen fursad ku filan oo ay iskala shaqeeyaan maadooyinka. sidoo kale waxaan ogaanay in gobolada qaar goobaha imtixaanka lagu galay uu hal qof ka shaqeeyay iyo in macallimiinta iyo maamulada iskuullada isku afgarteen in aan la ridin ardayda oo loo fududeeyo. 2. sidoo kale waxaan ogaanay in kormeerayaasha wasaaradda ee gobolada dalku ay aad u yaraayeen markii loo eego Muqdisho, meelaha qaarna maba jirin wax kormeer oo ay wasaaraddu ku samaysay. daruufo dhaqaalo iyo kuba amni oo ay dawladdu sheegtay ayaa sabab u ahaa in meelaha qaar ay dawladdu gaari weyso. 3. xogaha kale oo aan helna ayaa waxaa ka mid ah in ardayda gobolka Banaadir ay yihiin ardayda keliya ee si sax ah u galay imtixaanka dawladda, in kormeerka ugu badan ee dawladda u ahaa Muqdisho oo keliya, in macallimiinta ilaalisay ardayda imtixaanka ku galaysa Muqdisho ay si sax ah waajibkooda u guteen, halka kuba kalena aysanba ilaalin meelaha qaar, iyo in wasaaradda ay culays gaara saartay macallimiinta Muqdisho imtixaankii lagu galay ilaaliyay markii loo eego kuwa gobolada kale. dhowr macallin oo ka mid ah kuwii saxay imtixaanka dawladda ayaa yidhi waxaan arkay baqshad ee ku jiraan imtixaan ee galeen 30 ilaa 40 qof. dhammaantood waxay ka sinaayeen in hal qof uu qoray, hal nuuc oo qalin ah lagu qoray, su'aalaha la qalday iyo kuwa la saxay dhammaantood ay isku mid ahaayeen. taasina waxay noo muujisay in hal qof uu ka shaqeeyay. sidoo kale macallim kale oo ka mid ah kuwa imtixaanka saxay oo aan qarina magaciisa ayaa ka idin u sheegay in dawladda Soomaaliya ay mas'uuliyad weyn iska saartay u cadaalad falidda ardayda Soomaaliyeed, balse ay macallimiintu aaminsan yihiin in imtixaanka looga shaqeeyo ardayda qaar halka kuwa kalena loo fududeeyay in iska kaashadaan. imtixaanaadku kale marka la rabo in shaytaan lagu buuxiyo meelaha qaarkood waxaa ka arkaysaa bashqado qaabka bashqadahaan imtixaan ku weysteesan yahay. waxaad arkaysaa markaas bashqad sidee u xilino hal maaha ardayda dhan hal natiijo oo wada keenayaan halka ku wada qoran tahay. waxaana lagu dareemi karaa xitaa waxaad ka dareemi kartaa hal qof inuu meeshaas imtixaanku ka shaqeeyey. marka tusaalaha ugu cadcad waxaa ka mid ah in hal qofood warqadiir la soo wada mareen, hal meel ay soo wada qaldan yihiin, qalada kuu jiro, hal gacnay wada qortay, waxyaabahaasoo kale way jiraan. waa aragtaa awooddeedu ma lahan wax walbana kulli dadaalka sanadkan dawladdu ay gelisay imtixaanka runtii aad u badan buu ahaa. awooddaas hadda qabsan aan sheegay iyo ustaad macallimiintiina wax arkamida ku jira arday ama hal bashqad oo 60 arday ku jiri karaan ama wax u dhow oo isku natiijo soo saaray, isku far wax lagu qoray, hadday wax qaldeenna isla su'aale wada qaldeen. way jiraan nacam ardaydaas way jiraan bashqadahaas oo kale way jiraan waan aragnay. marka gobolada sidooda dadkan inuu isku sheegaa ma walba fiican gobolada marka laga hadlaayo waa ka fursad fiican yihiin kuwa gobolkan ku nool. madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa arrin argagax leh ku tilmaamay ardayda la sheegay inay ka tirsan yihiin gobolka Banaadir ee ku dhacay imtixaanka. waxa uuna sheegay inaysan suurtagal ahayn. qoraal uu soo saaray ayaa wuxuu ku yiri
waxa ay soo gaaraya walaaca iyo tabashada dad badan ee ka qabaan natiijada imtixaankii fasalka 12aad oo ay faafisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxaana shaki ku jirin in shaqo walba oo la qabto ay leedahay dhaliil iyo bogaadin intuba haddaba sida ay dad badan u liqi waayeen natiijada imtixaanka ee la shaaciyay ayaa la qabaa aniga oo weliba ku dhawaa 25 sano ka shaqaynaya arrimaha waxbarashada mugdi badan ayaa iiga muuqda natiijada waxaana ku baaqayaa in guddi qaran ee u saarta dawladda oo si dhab ah loo baaro cabdirasaaq nuur jimcaale oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay inay u cadaalad fasho ardayda Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu sheegay in ardayda muqdisho ay la daaladhacayaan daruufo kale oo waaweyn oo aanay qabin ardayda kale daruufahaas oo ay baday dawladda Soomaaliya taariikhda waa maanta horta in ardayna guulaysato ardayna dhacdo tirada rabtaan noqotay waa wax iska caadi ah 25 kun oo arday ah gobolka Banaadir imtixaan u gashay 8 kun oo arday ku dhawaadna way dhaceen halka maamul goboleedyada kalena iyagana la sheegay hal maamul goboleed oo dhan oo arday kun arday imtixaan u gashay ku dhawaad in iyagana 4 arday kaliya ayaa dhacday macnaha taas oo waxa la yaab isla markaana ay qaateen tirada ugu badan ee ardaydii 10kii arday ugu sarreeyay ay noqon lahayd iyo 100kii arday noqon lahayd in macnaha hal maamul goboleed ay bataan ayaa maarta barbalada ka keentay gobolka Banaadir waa gobol waxbarasho ku fiican oo aad maarta u wanaagsan inuu fagaaro way saameyn karaan laakiin aniga waxaan isleeyahay waxaa jirta maarta cadaalad darro qanka maarta imtixaanaadka sanadkii hore imtixaanka qaranka dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in u fariisteen arday gaaraysa 29434 qof waxaana ku dhacay 6935 arday oo dalka oo dhan ah sidoo kale 10 arday ee kaalmaha ugu horeeya gala sanadkii hore intooda ugu badan waxay ka baxeen iskuulada Muqdisho gobolka Banaadir waa gobolka kaliya ee la sheego inuu bixiyo canshuurta dawladda waa gobolka kaliya ee aan lahayn matalaad siyaasadeed waana gobolka ugu amniga xun dadkiisana muddo sanadaha ay ku jiraan go'doon sidoo kale dawladda ayaa shala sheegtay inuu yahay gobolka ay ka dhaceen ardayda ugu badan imtixaanka qaranka shacabka Muqdisho ayaa isweydiinaya goorma ayuu aqoonyahanka siyaasiga odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo culimada Muqdisho ku baraarugi doonaan dhibaatadan u gaarka ah dadka Banaadir dalal ay ku jirto Soomaaliya ayaa safka hore ka galay musuqmaasuqa dhaqaalaha ee COVID-19 maslax Abuukar Xaaji ayaa ka waramaya hay-adda jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee WHO ayaa walaac xooggan ka muujinaysa in qaar ka mid ah dalalka Afrika si weyn loo musuqmaasuqo gargaarka la xiriira coronavirus iyadoona hay-addan mas'uuliyiinteeda ay sheegeen in tani ay dhaawacayso dadaalka loogu jiro in guud ahaanba Afrika iyo caalamka intiisa kale laga ciribtiro cudurkan halista ah Kenya, Zimbabwe, Uganda, Soomaaliya iyo Nigeria ayaa ah meesha sida gaar ahaaneed farta loogu fiiqay in si weyn loo musuqmaasuqo gargaarka coronavirus isla markaana shaqaalaha ka shaqaynaya arrimahan ee dawladahan u shaqeeya ay yihiin kuwo si weyn oo aan cabsi lahayn u musuqmaasuqa gargaarkan waxaa laga cabsi qabaa in dalal kale ay ku soo ifbaxaan musuqmaasuqa heerkan gaarsiisan oo Afrika ka tirsan Mr. Adhanom oo ah madaxa guud ee hay-adda WHO ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali karin heer musuqmaasuq oo dunida ka sii jira laakiin wuxuu sheegay in bililiqada lagu hayo gargaarka coronavirus inay la mid tahay in aan tooganayno kuwa ka shaqaynaya arrimaha caafimaadka oo uu sheegay in xitaa qaarkood aysan heli karin qalabka afka qalaad magaciisa loogu soo gaabiyo PPE ee badbaadada u ah dhaqaatiirta si cudurkan saameyn uusan ugu yeelan waxaana uu sheegay in dhaqaatiirta oo qalabkaas aan haysan oo shaqaynaya ay la mid yihiin iyagoo naftooda ku biimeynaya goob dagaal iyaga oo aan wax hub ah wadan Soomaaliya ayaa ka mid ah dawlado Afrikaan ah oo shaqaalo ka shaqaynayay arrimaha caafimaadka u maxkamadeeyay musuqmaasuq lagu sameeyay gargaarka la xiriira coronavirus ee saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen Kenya ayaa sheegtay in xeelad cusub ay u adeegsan doonto dagaalka ka dhanka ah al-shabaab sida warkan uu ku faahfaahinaya Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan taliyaha ciidamada militariga dalka Kenya General Robert Kibaki oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta dalka ayaa waxa uu sheegay in militariga dalka Kenya hadda ay helayaan qalab cusub oo ay kula dagaalamayaan weerarada ka dhanka ah ciidamada wadanka Kenya ee ka imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu inta raaciyay in qalabkan uu wax badan ka bedeli doono dagaalka lagula jiro
dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo jenaraal robert uu diiday inuu faahfaahin badan ka bixiyo qalabka cusub ee ay helayaan ciidamada milatariga waddanka kenya. qalabkan aan kala hadlayaa waxa aan ugu talagalnay in aan ku kasbano qulubta shacabkeena isla markaana aan kula socono muwaadiniinteena ay khatarta gelinayaan argagixisada ayuu hadalkiisa sii raaciyay mar uu waraysi gaara siinayay wargeys laga leeyahay waddanka Kenya oo la yiraahdo Kenyasa. sida uu taliyaha xusay qalabkan waxa kamid ah diyaaradaha droneska ah oo casri ah iyo sidoo kale helikobtarada iyo qalab kale oo basaasa kara ayuu yiri goobaha ay joogaan argagixisada kuwaas oo noo suurtagelinaya in mar walba aan beegsano inta ay shacabkeenu dhibaateyn lahaayeen ayuu hadalkiisa sii raaciyay taliyaha. qalabkan ayuu xitaa taliyaha waxa uu sheegay in ay ku tijaabiyeen Soomaaliya gaar ahaan ciidamadooda ka tirsan midowga Afrika ee jooga Soomaaliya si buu yiri aan u kasbano qulubta dadka nala howlgalaya ayuu yiri taliyaha oo sii hadlayay. Kenya waxa ay kamid tahay dalalka dhibaatada badan ay ka soo gaarto weerarada ay qaadaan dagaalamayaasha al-shabaab. xuduudda u dhaxaysa dalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sidoo kale kamid ah meelaha ugu dhibka badan ee ciidamada Kenyaanku ay ku wajahayaan weerarada ay soo qorsheeyeen dagaalamayaasha al-shabaab. wararka qaar ee aan helayno waxa ay noo muujinayaan in argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro ka dhana ciidamada huwanta ah waa kuwa Soomaaliya iyo Kenya ayuu yiri sarkaalkan. waxa kale oo uu intaasi sii raaciyay in al-shabaab ay ku dadaalayaan sidii ay u arqaladeyn lahaayeen isku socodka labada dal iyo guud ahaan shacabka Kenyaanka. waajib ayaa naga saaran difaaca shacabkeena waana mid aan hadda ugu dadaalayno inaan helno qalab cusub ee elektarooniga ayuu yiri General Robert Kiboji. General Robert Kibocho ayaa waxa uu intaasi sii raaciyay in tan iyo markii ay Soomaaliya ciidamadoodu ay gaareen ay Kenya wajahday dhibaato fara badan isagoo intaasi ku daray in mar aan sidaasi u sii fogeyn militariga Kenya ay soo afjari doonaan dagaalamayaasha al-shabaab. hadalka taliyaha ugu sareeya ciidamada waddanka Kenya ayaa imaanaya iyada oo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal aad u liito sidoo kalena dagaalamayaasha al-shabaab weerarada ay ku qaadayaan xuduudda u dhaxaysa labada dal Kenya iyo Soomaaliya ay noqdeen lamana oga in hadda militariga Kenya qalabka cusub ay heleen wax badan uu ka bedeli doono weeraradii qorsheysnaa ee ka imaanaya al-shabaab.